haddaan madaxweyne noqdo muhiimadda koowaad oo wiilashaas in la helo ahaayaan xafiiskayga kow intaasaan soo helnay waa la keenay waa kuwaana waa ka shaqeyn muhiimadda koowaad oo maalintaan xafiiska taga aan shaqo ka bilaabay naqanay ducadaynana ilaahay waa kuu aqbalay habeenkiina waa kuu duceehayni yaa habeenkiina waa kuu duceehayni horna waa kuugu duceeyni haddana waa kuu duceehoynaa inaa ala taraya ka degataa oo xirooyinka booqataa oo xisaab sax noo keentaa wixii dhintay iyo wixii noolba oo farmaajona loola xisaabtamo waftigaad u baxday waa kugu taageersanahay 10 jeer haddaan abiil u jeedina madaxweynaha dhan noqon arrintan ka hadal waalidiintaana hooyooyinkan Soomaaliyeed ee maalin walba jidka taagan ee ooyday ee marka qaarkoodna booliska dawladda oo kala raacdaynayo oo la daba taagan garaacayo war sidan si ma ahane war xataa dhaqanka Soomaaliga ah xataa kuma ficna hooyo ooynayso aniga cunugayga dawladda ay qaad ilmahaas ilma Soomaaliyeed waayo wiir anaga dhalno wiir waana runtiis ma fahantay مسؤوليتي waxaa qaaday ninkii ilmaha mahaan ka diri oo shirqoolka u dhigay hal maalin madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha xilkiisu dhamaaday inta ummadda soo istaago warkaas la sheegay waa saan ma dhehen warkaas la sheegay waa jira ma jiro lama geyn Eritrea anaga dad naga ma jiro Eritrea noo joogan tababar ay noogu jiraan dagaal Itoobiya ma aadan war dagaalka Itoobiya waa aadan intaana wax badan loo mishay oo ya dhibaataysan baana 3 sano iyo barbaad dhibaataysnay ilmaha ayaga dhibaato ku socotaa khaa'inimada iyo qarsoonida iyo gardarrada dad badan oo Soomaaliyeed oo dawladda kamid ah ka qayb galay odayaal nabadoonaha ilmahan damiintay waa aamusan yihiin qaarkooda hadlay laakiin inay hadlaana la rabaa madaxweyne awal codsi maana wadan jirin baroor baan wadi jirna maanta marada cad waxa ii xiray nabad madaxweynaha cusub nabada u wada maanta marada cad ii xiray madaxweyne waxaan ka codsanaynaa oo codsi dheer kaaga codsanaynaa ilmaha eegi Eritrea oo god ah oo aan meel la gala ahayn oo adiguba ogtahay oo meel la galaan la arag ayaa afoorku ka hor jooga adii dawladda hoosada u ursid ma oginay kulay wara ma sheegtid inaad ogina dad tiraahdo waa cabsanaanay waxa ismaanaga sheegi karo ku dhaha mushkilada jirta tan waay underground yani ur argagixisamiya oo qarsoon maxaa loo qarina 5,000 wiil 7,000 wiil noloshooda iyo mustaqbalkooda ma qarsoon karaan mas'uuliyadda waxaa leh madaxweynaha hore iyo intay inta ka hooseysa iska xasan sheekh ilmiga ma wadan aniga waa madaxweynaha hadda la doortay caqabad u taalo waa dawladda dambe oo loo dhigay caqabadaha loo dhigay mid kamid ma waa badan yihiin raac male meel laga bilaabo male waa la soo ogaanaa laakiin waa waqti qaadanay mudane xasan sheekh maxamuud xilkan ilaaha ku sii horta bini aadan kuma siinin waa qawowna hadda been ma sheegay waay waxaan ka sii qawowayna markii awlaadayna oo dhaxta